Yıllardır içeriden ve dışarıdan. Even if it was 60 years late, we arrived despite the efforts of some countries who did not want this to happen. We're proud of starting this new project despite the pandemic. Today is not just the beginning of a new factory, but a change in the way we approach manufacturing. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajap Dayyip ordogan ayaa dhagax-dhigay warshadhii ugu horreeysay ee soo saarta baabuur wadani ah oo dalka Turkiga lagu sameeyo. Ordogan oo hadal ka jeediyay xafladda dhagax-dhigga warshadan oo ka qabsoontay gobolka waqooyiga galbeed ee Bursa ayaa waxa uu yiri sidan: waxaan qorsheynaynaa inaan dhammaystirno dhismaha warshadan muddo 18 bilood gudahood oo aan ka qaadano baabuurta ugu horreysa khadka wax soo saarka rubca ugu dambeeya ee sanada 2020 hadii ay beedmo. Ordogan waxa uu sheegay inay bilaabeen dhismaha wax soo saarka ballaaran oo leh qaybo kala duwan kaasoo si weyn u bedeli doona aragtida warshadda ee ku jirta maskaxda dadka. waxa uu sheegay inuu ku faanayo inuu ku guuleysto mashruucan weyn inkastoo uu jiro cudurka dilaaga ee loo yaqaan coronavirus kaasoo galaaftay nolosha kumanaan qof adduunka oo dhan. Ordogan waxa uu sheegay inay tahay tallaabo taariikhi ah oo lagu rumaysto hawaawigii 60 jirka ahaa si loo soo saaro gaari asal ahaan dalku soo saaro. waxa uu sheegay in warshaddu marti gelin doonto gaarigii ugu horeeyay ee Turkisha injineero wadaniyiin ah nashqadayntiisa ay leeyihiin iyo waliba xarunta wax soo saarka. Madaxweynaha Turkigu waxa uu xaqiijiyay in gaariga Turkishka ee lagu sameeyo gudaha dalka uu sumad u noqon doono dib u curashada dalka inkastoo ay jiraan kuwa uu ku tilmaamay kuwa u ololeeya cabsi gelinta si ay u niyad jabiyaan go'aanka dadka. Ordogan ayaa tilmaamay in kuwa u ololeeya cabsi gelinta ay isku dayayaan in Turkigu uu ku tiirsanaado dibadda si ay u fashiliyaan waxa lagu haminayo iyagoo u maraya habdhaqanka dacaayadda in Turkigu aanu awoodi karin inuu soo saaro baabuur dunida uu iibgeeyo. wuxuuna intaas ku daray dalalka ay cabsi gelinayso awoodda sii kordhaysa ee Turkigu iyo kordhinta kalsoonida ay ku qabaan naftooda waxa ay bilaabeen olole dacaayad madow ah oo ay sumcadda Turkiga ku xumaynayaan. wuxuu intaasi raaciyay oo uu yiri dhammaan dadkaygu waxa ay qaateen mashruuca soo saaridda baabuurta Turkida sababtoo ah waa mid ka tarjumaya awoodda dalkeena iyo awoodda wax soo saarkiisa. gaarkan Caracas oo ah maamulaha shirkadda baabuurtan cusub ee Turkiga ee loo soo gaabiyo magaceeda la yiraahdo TOG waxa uu sheegay in warshaddu ay bilaabi doonto wax soo saar ballaaran sanada 2022 iyadoo leh awood sanadla ah oo ah 175,000 oo unugyo ah. waxaa bishii Juun sanadii 2018 shan ka mid ah warshadaha waaweyn ee Turkiga oo kala ah Anadolu Group, BMC, Koch Group, Takel, Soli Holding iyo hay'adda dalladda midowga golaha iyo isweydaarsiga badeecadaha ee Turkiga ayaa ku heshiiyay inay abuuraan gaariga noociisu yahay TOG oo noqon doona kii ugu horeeyay ee Turkigu uu soo saaro. Hiigsiga adeegyada gaadiidka ee Turkiga 2023 marka la gaaro ayaa loo qorsheeyay sidan: waxaa la dhisi doonaa 11,000 oo kiiloomitir oo khad tareen cusub ah iyadoo la ballaarin doono shabakadaha khadadka tareenada xawaaraha sare ku soconaya marka la gaaro 2023. waxaa sidoo kale la dhisi doonaa 15,000 oo kiiloomitir oo wadooyin waaweyn oo kala qaybsan marka la gaaro 2023. waxaa la kordhin doonaa garoonada diyaaradaha si loo dhiso garoon tira ahaan ka mid noqon doona 10 garoon ee adduunyada ugu waaweyn 2023. waxaa la horumarin doonaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo dayax gacmeedyada. daraasad laga sameeyay hiigsiga dhaqaalaha Turkiga marka la gaaro 2023 ayaa muujisay qodobadan soo socda. guud ahaan wax soo saarka gudaha ee GDP oo 1 trilyan ahaa sanadii 2014 ayaa marka la gaaro 2023 noqon doona 2 trilyan oo dollar. dakhliga qofkiiba soo gala ee BCI ayaa gaari doona 25,000 qofkiiba marka la gaaro 2023. waxaa kordhi doona alaabaha Turkiga u dhoofiya dibadda oo gaari doona 500 bilyan marka la gaaro 2023. cabirka ganacsiga dibadda ayaa gaari doona 1 trilyan oo dollar. waxaa kordhi doonta tirada heerka shaqaalaysiinta oo gaari doonta 30 milyan.
waxaa hoos u dhigmi doona heerka shaqo la'aanta 5% marka la gaaro 2023. waa Abdirizakjubba oo in leh intaan dib u kulmayno nabadgelyo.